muddo ayaa aan imaatinkeeda sugayey. Maalin ayaa ay tidhi waa aan ku soo marayaa. ilaa saqdii dhexe ayaan dhowrayay. Salmada dhaqaaqdaba iyadii baan moodayey ma aysan imanin. Anigoo maqnaanteeda ka tiiraanyaysan ayaan ka taati dhacay. xaalad ka wanaagsan tii hore oo qorow ah ayaa aan galay. waxaan ku arkay riyo annagoo is waraysanayna ayaan si toosay saa meeshu waa xabsigii. in aan sii gamasanaado ayaa ka wacnayd baraarugaas. tixdan aan ku maaweelooday waxa ay ka warramaysaa in araggeedu muhiim ii ahaa iyo in aanan ka maqnaadan haddii xaalad adag ay wajahdo. sida awood dawli ah laygu jeebeeyay taxaabaysa. waxa aan ku beerla xusanayaa sida uu qofka dhibani u mudan yahay kaalmada iyaduna ay igu jirtay halka midigta. in aragti la-aanteedu igaga daran tahay xadhigga ayaan xusaya. wuxuu yidhi maal iyo adduun kuma dirqiyin mood in lay huro kuma odhan malaaqii ahaw maaradan raba muslimkii dhibaataysan baan boqoloo miyine maqalkiiyo sideed caawa tahay lagama maarmayne. adiguna macaygaad ahayd qaabka midig hiile muusoodka wuu kugu qarwo ammaanka jeelanie marwadii timaadaba qofkaan mooday baa tahay. maskaxdii dhalaar baan gashaday maanta way imane bilicsiga albaabada sidaan huunna ugu maahay. ilamaa mirtii baan lahaa meeday daawadiye muraaraa dilaacay hurdaa layga maanacaye. soo jeedku goortuu mur iyo maale igu dhiiqay markii aan gataatiga u dhacay muuq kala yimiye. riyada macaanid kolkii laygu soo maray anigoo mafsuudoo hurdada gul tirsaday maandheh maruuryooday goortan ka kacay jeelka madashii. magaceedba hooyada dulmigu waa maxkamadaas anigoon kollaba maaruq dilin maati iyo noole miladiyo anoon cayin nebi mawle iyo diinta mukhdaraad anoon laacin iyo maanka waxa doorsha madaweyn kamaan dhowrahayn mooshinkaa yimiye. magacii wakiilada kolkii laygu muruq sheegtay mirarkiiba waatay xabsiga igu maqiiqeene. mucsurkiyo dhibtii aan arkiyo maankad iyo dhiilo waxa igaga sii maal badnaa muhashadaadii. muuqaagu waxa uu kabaa muuna dhaayaha murtidaadu taan xaalad maray way masaxaysaaye. midabkaagu wuu biin lahaa muruga taagnayde adigoon maqnayn baan haddana maalin la yimane. haddii aad mushkiladaysan tahay lama mafsuudeene mudac iyo wixii kugu qodxi way imudayaane. waxaan ahay miciin kula damqada maalintii adage maxaad iiga meeraysateen jaalamaan garane. maalin arbacaa ayaa la yimi balse waxa celiyay askari aan cambaaraynayo oo joogay iridda bannaanka. gabar la socotay ayaa ii sheegtay inay laabatay oo xanaaqday. walow aan taleefanka ka wacay waxay tidhi ma imanayo maadaama oo awgii loo dhibay aniga ayaa maslaxaad galay. habeenkaas waxaan u diray fariin ahayd wallaahi booqashada awgeed maanta ayay iigu farxad badneed. xadhigga waan kuwa guddoomiyin awgeed lagu dhibay ka raalli ahaw walaal please waajibkaaga wadguud. waxay igu warcelisay wiil yar oo ciilqaba ah oo bilaa khalaaq ah baan ugu imid teelkiis maanta haddii aanan soo marayn wallaahi gacan bay iga dhici lahayd. guddoomiyiintii waa ay guddoontay faaligelinteeda anigoo cabiraya sida aan uga xumaaday in la celiyo filayana in wanaag lagu wada ciidi doono ayaa aan idhi. cuntaduba siday ruux golmoon ciilka uga biiso cosabi ha u shaydaadu tahay caawimaad dhaba cishadan ku dhehdaan helaa caafimaad rune codsigii adoo oofiyo booqashada caynshay caqlilaawihii kugula kacay caydankiyo goodi waxaan cambaaraynaya caawa oo idileh. cagku maad ahayn saacad qula tii la celin laaye haddii caadi tii aad geydiyo loo cabiro weedha caleemaha inuu kuu lulaa kuu cunto milayde. cubadhowrka qaar caashaqaa ciidan loo xulay isagoona caqabad beerin iyo xaal calqalad keena calankaad mudnayd buu si togan kugu cisayn lahay.
كعروضي قرتي اللي يلعب حنبا هلاي عوانكاس wuu eedayaa caynka uu falay iyo cafi iyo haddii aanad odhan haw cartamin huno cashar baan u dhigayaa markii caynku joogsadee daruuraha naskoo ii curtay caashu sugaysaaye ku caloolsamo oo lub filo caabaqaa tagiye haddii aan calaacali lahaa caynka ugu jiidan xornimankooda ciidayna caadil idinkiiye u culdhiilka maandeeq dhowaan guushu